laascaano qormada waxaa ku dul istaagaynaa qodobada halista ku ah ciidamada Soomaaliland sida ay sheegeen. kow midnimo shacabweynaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa dareemaya xurriyad markii ay dabaabaadkii ka amar qaadan jiray Muuse Bixi ay guud ahaan ka sifeeyeen magaalada Laascaano. labo hoggaanka dhaqanka ayaa meeshii ugu adkeyd ka istaagay qadiyadda Soomaaliland iyagoo ay talada ku soo noqotay gacantooda midig. saddex ciidamada ilaalinaya madasha shirku ka socda ee magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa ah fursadaha lagu dirsan karo oo cadowga ku ah dhabarjab weyn. afar ciidamada Soomaaliland kama haystaan admission number gobolada Sool Sanaag iyo Cayn taasoo ay sababaysaa inaysan ku iman rabitaan shacab wajigabxna ku ah ciidamada duleedada jooga magaalada Laascaano. shan ciidamada Soomaaliland ku harsan duleedka magaalada Laascaanood inay sidoo kale aysan haysan Laascaanood code lambarkaasoo ay bixiyaan isimada iyo cuqaasha talada gooya. lix ugu dambayn ciidamada Soomaaliland ayaa u muuqda halhayskii ama masuugaantii ahayd rag socodku waa door haddii moodku daayo waxaana ku guryan noqon doonaan deegaanadoodii iyagoo saynta laadlaadinaya. ragga socodku waa door haddii moodku daaye derbi lama fadhiistiyo halkii ku daraate kol haddaan wax daaqiyo dunyayga foofayn waa anigoo ah maxamed cawil kawte.